عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelka ruuxi home decor waa walaashin raxmo ruuxi. maanta waxaa idin wadaa treatment aad iyo aad tinta tayo ugu leh. saa ujeedin walaalay qaaliga ee treatmentkeena intaanu shay ka sameysanayna insha Allah. karaal noqdo codkayga. saa ujeedin walaalay qaaliga ee treatment aan caadi ahayn waaye. first video idin duubay marka anaa marsaday waxaan isdhahay hadii wax natiijo fiican ka keen waasid ha gelinin videoga iska dhaaf. shala marsaday marka maasha Allah wallahi zaaid u fiican tahay. anina waxa waaye zaaid tinta igu nadaamisay. timahayga waxay haysteen damage oo color marka waxay noqdeen frizzy waxa waaye maxaa lahayn wax oo markano adeeg camal adi way jajabeysaa wax nooc kale noqotay dhan marka naturalkeeda way ka halaawday si hore u ahayd oo qurux badneed ma ahayn. meeshan waxaan ku haystaa cilaan saa u jeedin laba qaad cilaan qaad oo huruud marka maanta waxaan ka sameynaynaa huruud iyo cilaan waxaan rabaa in madax la marsado wallahi zaaid u fiican yahay. waxaa kaloo ku daraa insha Allah malab saa ogtiin timaha shine u sameeyaa softna uu ka dhigaa marka cilaankana tinta wuxuu u siiyaa energy like strong ka dhigaa xoog u siiyaa timaha oo hada daciifka energy u siiyaa marka walaalay qaaliga I hope inaad ka heli doontiin. waxaan ku daraa insha Allah olive oil. saa ujeedin olive oil idana tinta maasha Allah ku tahay ugu fiican tahay marka inta shay aan isticmaalayno kulli waa wax oo timaha u fiican. walaalay qaaliga saliidaneeto oo coconut aniga horta zaaid ugu boogay saliid kale ma isticmaali ba ayada bisa isticmaala timaha hadii oo maxal dhahay oo nafaqa lagu daraayo hadii kale haday kaliya tahay caadi ahaan iyada u marsadaa wallahi timaha soft ka dhigtaa. I hope inaad ka faa'iideysan doontiin. hair growth way leedahay oo natural hair growth leedahay waa 100% virgin saa u jeedin walaalay qaaliga waxa waaye waa pure coconut marka maasha Allah. waxa kale ku daraa insha Allah ukunto protein. saa ogtihiin boo jirka xataa protein u baahan yahay timahana sidoo kale protein u baahan yihiin kana maasha Allah marka ukunta tinta way u fiican tahay walaalay qaaliga inkastoo ay shiirayso laakiin maasha Allah timaha ka dhigtaa laakiin alaabta marka lagu qasamo ba shiirayso waxaa kale ku darayaa liinta waxa waaye gudaha agoolka iyo waxaas dhan ka bixinaysa scalp-ka daaweysa saa ogtihiin marka walaalay qaaliga urka ukuntana way ka baabi'inaysaa hadaa liinta ku dartid ukun dhan ma kaaga soo ureyso marka walaalay qaaliga waa kana jabliina ku soo darsanaya insha Allah waa liin dhanaanteena caadiga ahayd. waxaa kaloo ku daraya insha Allah meeshan ku haystaa inta sida waaye sorry guys inta sida aan isku daraya marka kor ahaan hadda idinka qabanaa bacdaanitana timaha ku xirnaa insha Allah. saa ujeedin waa kana marka waxa waaye kulli waxay ka kooban yihiin huruud cilaan biyaha neeto oo warmka waa ku qasanaa insha Allah. baaquliga neeto only waxa waaye treatment bisa ku sameystaa waa hair product because markasta marka oo aan sameysana hair product musqusha ku marsadaa marka alaabta jikada ma jecli inaan musqusha geeyo qaadadan iyo baaquliga seeto just for my hair waaye armaajada dhexda iska gashtaa oo musqusha u dhow marka saa ujeeda intaas shay ka sameynaya huruud cilaan saliidyaalka marka hadda waa kana huruud cilaanta isku soo daray. waxaa kale ku soo daray insha Allah ukunti iyo saliidyaalka ku soo daray liinti waxa dhan aadi maxal dhahay waa isku soo dardaray walaalay qaaliga marka waxaan sameynaa insha Allah biyaha soo qaatay biyaha aan maxal dhahay ku shubaya insha Allah marka whisker oo dulsha lagu qaso aan ku garaaca ilaa smooth uu ka noqdo oo timaha oo fiican u marsami karo. waa kana soo jeedin waa soo iska gareena si fiican isku soo dhaxgelina kabacdi soo baxo insha Allah waa isla arki doonaa.
waa treatment aan caadi ahayn walaalay qaali ani ahaanteyda waa ka helay waana ka faa'iiday maasha allah. Halkana saasa smooth ugu soo dhigay walaalay qaaliga maasha allah. fadlan hadaa channelkayga ku cusub tahay subscribe iyo saar, hadaa hore ila joogta comment iyo share iyo like insha allah. waxyaabaha badan oo dhiirigelinta insha allah waa idinla wadaagi doonaa. waxyaabaha ani faa'iido weyn u arko kulli waa idinla wadaagi doonaa walaalay qaaliga. zaaid idin jeclahay, waa ku mahadsantihiin meesha ay gaarsiiseen walaalay qaaliga. جزاكم الله خيرا. idin leeyahay waxaa idinkaaga tagay sidaas iyo maca السلامة.